18 Juulay 1918 ayuu Nelson Mandela ku dhashay magaalada lagu magacaabo Qunu oo u dhow tuulada Utama Transil. Aabihii Henry Mandela wuxuu ahaa hogaamiyaha deegaanka Jubaland wuxuuna ahaa caaqil. Markuu dhintayna waxaa darajadaas loo calaamad saaray Mandela. Waqtigaas Mandela wuxuu ku hamiyay inuu noqdo qareen ama lawyer. Mandela waxaa loo qoray Henleyson Metropolitan School kadibna wuxuu shahaadada BA degree ka qaatay Fort Hare. Waqtigaas 1940 oo uu ka tirsanaa ururkii SRC wuxuu ka qayb galay mudaharaad ardaydu dhigayeen sababteedana ayaana looga eriyay waxbarashadii. Dadkii waqtigaas lala eriyay ama lala cariyay waxaa ka mid ahaa Oliver Tambo. Kadibna wuxuu Mandela waxbarashadii ku dhamaystay qaabka loo yaqaan correspondence Johannesburg wuxuuna isu diiwaan geliyay LLB jaamacadda lagu magacaabo University of the Witwatersrand. 1944 Mandela waxa uu ka qayb qaatay aasaaskii ururkii dhalinyarada ee ANC ee lagu magacaabo yaqaanay ANC Youth League African National Congress. ururkaas oo markii dambe qaab siyaasadeed loo dejiyay 1949. 1952 waxaa Mandela loo doortay hogaamiye ololaha la magac baxay ololihii hukuumad adayga ee lagaga soo horjeeday kala faquuqa dadka sharciga ah. wuxuuna waqtigaas u safray meelo kala duwan oo Koonfur Afrika gudaheeda ah si uu u soo abaabulo olole weyn. waxaana lagu xukumay in loo dejiyo ololahaas wax yar kadib waaba la mamnuucay. waxaana Mandela lagu ganaaxay in uusan ka bixi karin Johannesburg. waqtigaas wuxuu Mandela abaabulay qorshihii la magac baxay M-Plan kaasoo faracyadii ANC loo kala jeediyay unugyo qarsoodi ah oo si qarsoodi ah howlgala. isla sanadka 1952 waxaa Mandela iyo Tambo waa saaxiibkiisii waxbarashada laga wada eriyay Koonfur Afrika ay ka fureen xarun sharci oo ahayd tii ugu horeysay ee wadanka ay yeeshaan dadka madow. waqtiyadaas Mandela waxaa hogaamiyay ku-xigeenka ANC oo heer qaran ah iyo madaxweynaha Transvaal ururka ANC codsi wadajir oo ay qoreen ama saxeexeen qaybta qareennada ee loo yaqaanay Transvaal Society oo ahaa habka qareennada laga xayuubiyo Mandela ayaa waxaa diiday maxkamadda sare ee Koonfur Afrika Supreme Court. sanadkii 1950 qaybihii dambe ayaa waxaa Mandela lagu oogay dacwad ah khiyaamo qaran. isaga ayaana ahaa waqtiyadaas qareenka istifaacaya. 1960 ANC ay ka mamnuucday kadib xasuuqii Wellington waxaana Mandela la xiray 1961 kadib markii uu dhuumaaleysi u galay si uu u abaabulo shirweyne qaran. isla sanadkaa waxaa aasaasmay ururkii Khumomo Mwesigwe MK oo ahaa garabka ciidan ANC waxayna bilaabeen curyaamin howlaha dowladda iyo dhaqaalaha taasoo ay Mandela hogaamiye ka ahaa. 1962 ayuu Mandela u ambabaxay dalka Algeria oo uu ku soo qaato tababar xagga militariga ah oo inuu soo agaasimo tababar ay qaataan xubnaha kale ee MK. markii uu dalka ku soo laabtay ayaa la xiray iyadoo lagu soo eedeeyay in uu wadanka si sharci darro uga baxay iyo in uu dhiirigeliyay mudaharaad isaga uu u noqday qareenka istifaacaya. waxaana bishii November 1962 lagu xukumay 5 sano oo xarig ah. intii uu xabsiga ku jiray ayaa lagu soo oogay xukun la magac baxay Ruffinia Tariel taasoo lagu soo eedeeyay curyaamin ama kharibaad qaran. waxaana lagu xukumay xabsi daayin ama xabsi ah madaxa ha ku furto. Mandela waxaa lagu xulay xabsiga aadka loo ilaaliyay ee ku yaal jasiiradda yar ee Robben Island. xabsigaas oo loo yaqaan Robben Island Prison waa jasiirad yar oo 7 kiiloomitir gudaha uga jirta badda dhow ee magaalada Cape Town. bishii Abriil 1984 waxaa Mandela loo bedelay xabsiga loo yaqaan Bloemfontein Prison oo ku yaala Cape Town. bishii December 1988 waxaa loo wareejiyay xabsiga Victor Verster Prison oo u dhow bar ku taal ahayd meesha u dhow xabsiyadaas. dembiyadii uu ka soo baxay xabsigaas
1927 sano kadib, Mandela wuxuu xabsiga u noqday goob waxbarasho, taasoo uu isku abaabuli jiray waxbarashadiisii si uu ugu kobciyo waxyaabo fara badanna oo waayo aragnimo iyo waxbarasho dambe oo uu buugtiisa ku qoray uu kasoo faa'iiday. mowqifkiisina marnaba isma bedelin. xilliyo fara badan oo loo soo bandhigay in la cafiyo isla markaasna lagu laalusho inuu madax dalka ka noqdo, wuu diiday. sanadihii toddobaatanaadkii wuxuu diiday aqbalaadda transfer. sanadihii siddeetamaadkiina wuxuu diiday soo dejinta BN Pott oo ahaa madaxweynihii caddaanka ah ee xilligaa dalka xukumayay inuu saamaxo. Nelson Mandela, free, 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 Nelson Mandela. 27 sano oo xabsi ku jiray kadib ayaa Mandela loo doortay inuu noqdo madaxweynihii ugu horreeyay dalka Koonfur Afrika ee si xor ah loo doorto 1994. xukuumaddii uu soo dhisay ayaa noqotay tii ugu horreysay ee Koonfur Afrika meel ay u siman yihiin ama xaq siman ay ku leeyihiin dadka madow iyo dadka cad, taasoo ay beddeshay midabta koorkii. kumana uusan dhawaaqin wax argoosi ah oo uu geystay xubnihii ka tirsanaa xukuumaddii xabsiga 27 sano ku hayay, iyaga oo saraakiishii iyo madaxweynihii xilligaasiba ay joogeen. laakiinse wuxuu noqday halyey qaran oo adduunyaduna ka yaabsaday.